agaasimaha hay'adda Aadam Academic Yusuf Suldaan Maxamuud ayaa ugu baaqay beelaha dega Somaliland ee laga tirada badan yahay inay u diyaar garoobaan isla markaana qaataan kaadhkooda codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashooyinka inagu soo foolka leh ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada si ay beelahaasi u helaan xubno ku metela golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland. Agaasimaha hay'adda Aadam Academic Yusuf Suldaan Maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa waxaan maanta halkan doonaynaa inaan fariin wacyigelineed oo ku saabsan doorasho ka qayb qaadashada diiwaangeliyaasha codbixiyaasha Somaliland inaan la wadaagno bulshada ku nool Somaliland khaasatan dadka ka soo jeeda bulshada laga tirada badan yahay in diiwaangelintu ay muhiim u tahay inay ka qayb qaataan isla markaana ay noqdaan dad isku diiwaangeliya qaata kaadhasha codbixiyaasha waxaa dhawaan ka dhici doona dalka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada tan waxay ka bilaabmi doontaa xaqa codbixiyaha qof kastoo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay inuu isdiiwaan geliyo xaqiisana wuxuu kaga bilaabmayaa maanta isdiiwaan geliyo wuxuu helayaa xaqa codbixiyaha si markaa aad u waayin xaqa aad ku codbixinayso ama xaqaaga codbixineed waxaa kugu waajibaa ugu horeyn inaad isdiiwaan geliso beritoole haddii aan la qadaro waxaa degmooyinka Boorama Gabiley iyo Hawd ka bilaabi doona isdiiwaangelinta codbixiyaasha taasoo komishanka doorashooyinka qaranka haddii aan la qadaro uu ka qaban doono goobahaas waxaa bulshada degan degmooyinka aan xusnay Boorama Gabiley iyo Hawd ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta codbixiyaasha iyadoo ay muhiim u tahay inay ka qayb qaataan inay doortaan cid iyaga matasha isla markaana codkooda ku hadasha waxaa kaloo muhiim ah inay fahmaan in ay tahay halkuu ka bilaabmo xuquuqda codeeyuhu qof kastoo kaadhkiisa qaata wuxuu ku qaadanayaa isdiiwaangelinta uu sameeyey doorashada ka hor laba waxaa muhiim ah in la barto dadka la diiwaangelinaya cid ay yihiin ugu horeyn waxaa xusid mudan in dadkii hore ee isdiiwaangeliyey ay guud ahaan ee kaadhashoodina qaatay ay diiwaan gashan yihiin aanay mar labaad aanay isdiiwaangelin karayn waxaase la diiwaan gelinayaa dadkii ka dambeeyey ama 2016 muddadii ka dambeysay dadkii qaangaaray ee ahaa da'doodu maanta kor u dhaaftay 15 jir dadkaas oo waqtigii 2016 diiwaangelintii codbixiyaasha ka dhacday Somaliland aan qaangaarin waxaa kaloo la diiwaan gelinayaa dadkii aan ka qayb qaadan diiwaangelintii isla waqtigaa dhacday waxaan u soo jeedinaa bulshada laga tirada badan yahay si ay u doortaan si ay maanta uga muuqdaan golayaasha si ay u helaan xubno iyaga matala isla markaana codkooda ku hadla inay ugu horeyn ka qayb qaataan fursadda diiwaangelineed ee kaadhasha codbixiyaasha lagu qaadan doono saddex waxaa muhiim ah si aad u hesho qof codkaaga ku hadla si aad u hesho cid baahidaada fahmaysa si aad u hesho cid adiga codkaada ku hadasho ku matasha waxaa muhiim ah inaad marka koowaad iyo marka saddexaad iyo marka afraadba aad fahanto inaad leedahay xaqa codbixiyaha aynu uga fogaano inaynan 15 sano kale aynan noqon dad aan golayaalka ama golayaasha deegaanka ha noqoto ama golayaasha wakiilada dad aan cod ku lahayn waxaa muhiim ah inaynu mar walba ku celcelino isku taakulayno isku tabaabashayno ka qayb qaadashada diiwaangeliyaasha ka qayb qaadashada diiwaangelinta codbixiyaasha taasoo muhiim u ah mustaqbalkeena taasoo muhiim u ah in la helo golayaal ama xubno inaga ka socda oo ina matala kuwaasoo gudbinaya fariinta saxda ah iyo baahiyaha saxda ee ummaddan leedahay ku jirtay la heli lahaa cid inaga ku hadasha codkeena gaar ahaan dadka bulshada laga tirada badan yahay Somaliland kuwaasoo siyaasad ahaan aan ka muuqan qaranka laba doorasho jira midna waa doorasho shakhsi ah oo qofku awoodiisa uu kugu dooranayo uu kugu siinayo xaqaaga siyaasiga ah midna waa mid adiga kugu xidhan si markaa waajibaadka ku saaran aad u gudato Maxamed Deeq Ismaaciil Xaashi telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.